waxaanu joognaa seeraha weyn ee caanka ee Ngorongoro oo ku yaala waqooyiga galbeed ee waddanka Tanzania. waddanka Tanzania sanadkii hore 2016 waxa dalxiisaana adduunyada uga yimi ilaa 1 milyan oo qof. sanadka 2017 waxay isku dayayaan in dadka dalxiiska waddankan yimaada tiradoodu ay gaadho 2 milyan oo qof. sababaha dalxiisku ay yimaadaan Tanzania kuwooda ugu waaweyn waxaa ka mid ah seerahan maanta aan ku suganahay oo kale ee Ngorongoro National Park ama seeraha ugaadha Ngorongoro. saynisyahanadu waxay ku qiyaasaan in seerahani uu ahaa fulkaano qarxay waqti imika laga joogo 2 milyan oo sannadood ka hor. deedna مسافة قاري سيلا 167 كيلومتر ودولكاني قاي تدنا بوريه ولي أي كوريك سيينو أي موقدان لكن دولك هوسي 2 مليون سنوات وقتي لقو قياسي كورو قاي تدنا وقاردو هالكان يكونوا ليهين دادك مسايدا أيا دولكان اسكاله وحوله دو أي داقان لكن مادام seerahan laga dhigay meel adduunyadu ay ilaashato oo jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa ay aqoonsatay sida sanadkii 1975 ayaa dadkii dhulkan deganaa Masaayda ahaa laga joojiyay in xoolahooda ay halkan daaqsadaan ama iyaga laftooduba degaan si markaa loo ilaaliyo in duurjoogtu ay ku nabad gasho oo deegaan iyo jawi degan ay ku hesho. dad aad iyo aad u fara badan oo boqolaal kuna ayaa sanad walba soo boqda halkan. gawaaridu sankay isku hayaan dadka dalxiiska sida adduunyada dhan baan ka yimaadaan. waa arkaysaan imika waxay idin muuqdaan noocyo fara badan oo xayawaanka waxa weeye dameer dibadeedkii iyo deeradii iyo ugaadh kale oo aad iyo aad u fara badan laakiin kuwa intooda badan ay u yimaadaan dadka dalxiiska inay arkaan. shanta waaweyn loo yaqaano sida maroodiga libaaxa wiisha iyo kuwa kale la midka sida gariga oo kale. waxaa lanoo sheegay in waqtigan oo waqtigii qaboobaha ay meelaha buuraha dhinacyadooda joogaan. waan isku dayi doonaa iyagana balada inaanu aragno. sida arkaysaan imika halkan waxay u badan tahay caws oo cagaar badan ama akhtar fara badan ma laha maadaama waqtigii roobku dhamaaday bishii May aynu ka soo gudubnay. waqtiga roobka aad iyo aad baa dhulkani u cagaaran yahay. haddii ay eegtaan dhinacan kale haro aad iyo aad u weyn baa ku dhex taalla Ngorongoro. haradaa qudheedu imika biyuhu markuu sii daba yar yihiin waxaana ugu wacan xilliga roobka
ويمكن الله بلودي دارات سي مقن inta yare ku hadhay biyaha ayay baadha badankoodu ka cabaan waa dhul aad iyo aad qurux badan waxaana lagu tilmaamaa Ngorongoro National Park inuu ka mid yahay mucjisooyinka adduunka I say the hippo are amphibian. They always live in the water daytime because they have very poor skin against the strong sunshine of Africa. If they stand to the strong sunshine for too long, their body, with their poor skin, they will get crack enough to kill them sometimes. So daytime they have to spend their time in the water, and they will go out in the night to feed. In the dry time, like now, they may go as far as 6 miles away, searching for good grass to eat, and come back to the pool early morning. And Paul wuxuu sheegay in jeerto ay maalintii oo dhan biyaha ku dhex jirto maadaama diirkoodu ama maqaarkoodu uu aad iyo aad khafiif u yahay oo deedna uu halis u yahay in qorraxdu ay wax yeesho oo mararka qaarkoodna hadday qorrax badan ku dhacdo ay diliba karto maalintii oo dhan biyaha isaga ugu jiraan laakiin habeenkii maadaama ay cawska daaqaan jeertu wuxuu sheegay in ay biyaha ka fogaato masaafad gaadhaysay ilaa 6 mayl oo kale oo marka ay soo daaqdo laakiin waa bariga hore ay biyaha ku soo noqdaan si qorraxda ay uga gaashaamato imika saacadu waa 1:20 deedna gawaarida faraha badan la arkaysaan ayaa haradan dusheeda isugu yimi si marka halkan loogu qadeeyo iyadoo qof waliba qadadiisa uu ka soo qaatay xagga magaalada Caruusha seerahan waxa lagu soo galaa halkii qofba oo bixiya $70 $70 24 saacadood baa lagu ogol yahay inaad seeraha gudihiisa ku jirto laakiin waxda joogaysa seeraha hudheelada ku dhex yaala laakiin habeenkii markuu gobolku dhaco kuma dhacdid inaad sidan oo kale aad seeraha isaga dhex lugayso xitaa haddii hudheelada laftooda degan tahay laakiin haddiiba aad intaad soo gasho deedna baxdo haddana waa inaad $70 kala bixisid $1 marka waa qiyaasi karaysaan kharashka faraha badan leh ee waddanka Tanzania ka soo gala seerahan iyo seerayaasha kale la midka ah gawaarida qudhoodii baa waxay u hoganayaan sidii Uganda oo kale oo iyagii baad moodaa inay Uganda ka mid yihiin imika qorrax baa soo yara baxday qabowgii faraha badnaayee saaka jiray uu kacay haddii dhinacana u soo yara dhaqaaqnaan Najua ni wale waizi waliojenga waxa xaggan dambe si wanaagsan imika u muuqda buuraha ku gadaaman seerahan Ngorongoro oo buurihii fulkaanadu ay ka dhex qaraxday
مدة لو قياسي لا مليون سنوات اللي جت شوفه إن يضو حلقي أنا هيني مكروبة بوجا ولو جت شو حلقي أبارتها سيدا وقت كانوا كل هالك لو قلت المامو haddana biyahani waxay iyagu ka yimaadaan buuraha waa biyo macaan deedna haradaasay sameeyaan deedna dee jeertii iyo xayawaanka kaloo dhan ayaa aad iyo aad ugu reeya ugaadh fara badan baa halkan isugu timi oo u badan deeradii iyo dameer dibadeedkii waxa la ii sheegay in xariijimaha uu leeyahay ama midabada madowga iyo caddaanka isugu jira in neef kasta ay gaar u yihiin sida faraha bini'aadamka oo kale oo ilaahay siduu u abuuray aanu jirin dameer dibadeed la mida dameer dibadeedka kale oo mid kasta astaamihiisa iyo laymankiisu ay kala duwan yihiin weli waxaana arag maroodiguna dabcan halkan waa ku badan yahay laakiin waxaa la ii sheegay in xilligan oo kale ama waqtiyadan oo kale uu baxo dhulka buuraha oo uga manaafacaad roon ama uu ka helo daaq wanaagsan maroodiga waddanka Tanzania iyo guud ahaanba wadamada Afrikada bari waqtiyada qaar baa jirtay farabaas lagu hayay isaga iyo wiishaba oo foolkooda ama foolashooda awgood loo gaarsan jiray laakiin waddanka Tanzania imika waxa la sheegay in sharciyo aad u adag laga soo saaray ugaarsiga khaasatan maroodiga iyo wiishoo kale meelaha seerayaasha sidan oo kale waxa la sheegay qofkii shicibaa ilaalada seera aan ka mid ahayn lagu arko isagoo qorisita ama hubsita in ay ciidamadu amar ku haystaan inay halka ku joogtaan oo waliba sida la sheegay mararka qaar kood meydkooda loo daayay baa leeyahay ugaadho ay cunaan ama xayawaanku ay cunaan si marka ay wax ugu qaataan kuwa kale dabacsanaa inay maaragtay maroodiga ugaarsadaan ama wiishoo kale Soomaaliduna caan bay ka hayeen sanadadii 7meeyadii 6meeyadii ilaa 8meeyadii laga soo gaaray Afrikada bari oo dhan oo ugaarsiga dadka ugu fadlan lacag bay ahaayeen laakiin taasi ma jirto haddii ay jirtana ma badna مقلون بيجوا حيد وليجي رحل لي بحياة ما أنت لكن أركي وإلا دور يتولي بحه وذا صعدة تنو برقي سنة يارو هل كاسة فرديان إلا 3 ساعات يديرات من كجرنا سيرها deedna markii la sii baxayay ayaa sidii ay nasiib ma salaameynayaan waxaan aragnay xayawaanka ugu qiimaha badnaa ee halkan loogu soo daawasho tagay waxa weeye maroodiga waa xandan oo maroodiya sidii ay nasiib ma salaameynayaan markii ay ogaadeen inaanu seeraha ka baxayno ayaan halkan ku kulannay waxa weeye maroodigii waa weynaa iyo dhashiisii wada socda sidii markii hore aan idin sheegayna waxay ka soo dhamaanayaan imika dhulka jooggiisu hooseeyo cawsku qalalay biyaha badan aan lahayn dad xagga buuraha ayay maroodiga wada socdaan waxaan u maleynayaa qaybtii waa qaybtii ugu dambeysay maroodigu waxa la sheegay inuu aad iyo aad ugu fiican yahay fanashada ama koritaanka buuraha deedna
buuraha waaweyn arkaysaa ayuu dushooda u baxayaa kaymaha ku yaala ayuu deedna manfac wanaagsan ka helayaa markuu joogo deegaankiisa dabiiciga maroodigu aad iyo aad buu qurux badan yahay ee aan lagu haynin meelaha beeraha xayawaanka oo kale ee sida xorta uu isaga daaqayo isaga socdo waa boqorka xayawaanka lagu tilmaamaa isaga iyo libaaxa maroodigu waxa weeye sida la ii sheegay boqorka xayawaanka marka ay timaado dhulka kaymaha leh libaaxuna waxa weeye dhulka bannaan ayuu isna boqorkayay labadoodana waxa la ii sheegay inaan la istusin malaha waxay ogaadeen in labada magac loo bixiyay boqorka kaynta iyo boqorka bannaanka deedna isma arki karaan waa col daahood go'ay baa la yidhi sida maroodigu uga dhammaaday seeraha ayaanu annaguna imika uga baxaynaa aad iyo aad baa u mahadsantihiin in barnaamijkan aad nala daawanayseen waxaanu idinka imanayay seeraha weyn ee caanka ee gorongoro ee ku yaala waqooyiga galbeed ee waddanka Tanzania barnaamijkan intaasu ku dhaye nabadgelyo